waxaynu maanta aynu ka hadlaynaa dhul baynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa magaalaynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadli doonaa masjid baynu ka hadli doonaa dhulkaaynu ka hadli doonaa waa arlada Falastiin oo waqfi u ah muslimiinta ilaa qiyaam saaca qof bil aadmiyana boqor ha noqdo suldaan ha noqdo madaxweyne ha noqdo ay xaraan ka tahay inuu taaka dhulka kamida u ogolaado yahuuda iyo gaal kalaba way muslimiinta ayaa xoreeyay Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ahdigiisa baa la xoreeyay mafaatixdii magaaladana isaga ka gudoomay nasaaradii iyo kristaankii ay muslimiintu ay ka qaadeen kana xoreeyeen ogaada ayuha al-ikhwa culimada islaamku waxay isku waafaqeen in dhul walba oo ay muslimiintu lahaan jireen oo ay gaala ka qabsatay dhulkaasi ha noqdo dhul asal ahaan muslimiintu ay lahaayeen ama ha noqdo dhul ay muslimiintu intay gaala ka qabsadeen iyagu ay yeesheen hadana dib looga qabsaday dhinaca fiqiga iyo shariicada islaamka dhul walba oo sifadiisu ay sidaas tahay waa dhul ay muslimiintu ay leeyihiin loona baahan maalintii awood u helaan iyo karti inay xoreeyaan una dadaalaan una sacayaan sidii dhulalka islaamku lahaa inay gaalada ay ka soo xoreyn lahaayeen sheekhana sheekh Abdullah Azam rahmatullahi alayhi ayaa waxaan ka maqlay soo leh hatta ard al-Andalus Spain oo maanta loo yaqaano oo ay muslimiintu quruun xukumi jireen oo laga qaaday wali waa dhul islaameed oo muslimiinta waajib ku tahay inay dib u soo xoreeyaan haddii dhulalkii islaamku sidaa yahay oo dhul walba kuwa ay xabashidu maanta haysato kuwa ay Kenyaanku haystaan kuwa Uchaynuhu haysto kuwa Ruushku haysto kuwa Hindidu ay haystaan ha kala reebin Soomaalidu waxay ku seexatay markii Hawdi Reserve Area iyo NFD laga qaaday way iska seexdeen waxayna u qaateen dhulkan inaan dhul islaam ba ahayn laakiin waxay ilaabeen inay waajib ku tahay min awjab alwaajibaat wa min furuud al-a'yan haday awoodu helaan in dhulkaasi ingiriisku intuu ka boobay ka gacmo maroojiyay oo nasaarada xabashida iyo nasaarada Kenyaanka uu gacanta u galiyay ilaa maanta la iskaga hoos nool yahay waliba ay dhacday niman wadaadii inay malasanaawi hilshiis la galeen oo ay ku dhawaaqeen inay Itoobiya ka mid yihiin وهذا كله مخالف للشر ومخالف للدين وحي خلاف سنتي وحي أي مسلمين تو أي إسكو إجماعين علماء هذين دولالك مسلمين تا حكم كوغ الشرعي والسلاية هي محاذ ملاينسا أرض فلسطين محاذ ملاينسا أرض فلسطين محاذ ملاينسا وحويا نعم أرض الإسلام وإسلام وضميد لكن فلسطين هي القدس هي المسجد الأقصى وحويا قداسة قونية إيو إن خصوصيات قونية أي ليهين بحيوليهين القدس إلهي سبحانه وتعالى القرآن كينو بشيء إلهي وحي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله علاقة بادريمس هدو إلهي فهم كسيي إنو كده حيسيه إلهي علاقة مسجد الحرام وما أنت حجاجتي أي شوكتو والله طوافه والله عمريسته والله حجيه والله اعتكافه وقلوبة مسلمين أي كحريهين أي قيريسيهين مسجد كحرمة له إله أدون كيسي محمد صلى الله عليه وسلم كقوريسيه هبين إله الكي إلى المسجد الأقصى مساجد كيف وانت بدنا محا مسجد الأقصى لو يلو مساجد كيف وانت بدنا لأن مكة أيو كفوها آدمو كفوها عربت هاي مكانو كفوها ليلا هبين نكرنا الليل كلا قليي waxay tusaysaa in dhacdadaasi mucjisada ahayd
إن وقت يرو قابلوا هبين كميدا إن دعدي مركان وحن أركينا مسجد الأقصى وحولا لي هي مسجد الحرامي المسجد النبوي أي ولا لي هي مركان دعضني waxay ka dhacday in nabiga laga guureysiyay habeen masjid al-haram ka laga guureysiyay oo loo guureysiyay la geeyay halkee ila al-masjid al-aqsa oo quds maanta ku yaalo ay yahuud ay gumaysanayso gaalada nasaaraduna ay ku taageerayaan horana ugu taageereen rixladaasi nabiga sallallahu alayhi wasallam ya suhbada ayaa la socday وحل السعودي جبريل أيان السعودي ملك وين بالسعودي محايا سببته محا ملك جبريل انت وسود دقي النبي وصفرك ورجلي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دمتنا النبي صلى الله عليه وسلم نوقع ذي إلى السماوات العلى سماوات كسرين تلدافسي مال إلهي أجي ولجارسي أو إلهي الله بدون واسطة نبينا هبيك صلى الله عليه وسلم هذا الكإله هو مغلي فهو كليم الله سيدنا موسى كليم الله يري أي علماء قررين شرفت استبصع تأذو قياس ميل بلا قارسي حتى يعني بشر قاري آنو تشرين إلهي سيب الله كنت صلاة بو كفر ديالي إلا مركي دمشق صلاة الله قدقي أجر كنوا كنت كان معني والبا لكن نحن تكنا نو شن صلاة بين تكنا بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات عباد الله شرف أنت كوين بيال هلكرة أبدا لم هلكرة علماء وحى لويدين هبينك الليلة قدرها إيه هبينك الإسراء والمعراج النبي قد ما شاسر لقيي كيبان فضل بدن بالي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه سؤال شاكر جوابي وحر رحمة الله عليه في حق نبي حق عيسى لا شك إن ليلة الإسراء والمعراج أي فضل بدنيت وايده ماشو مري يشرفت للسي مرتبطة وقاري إلا وإلهي سبحانه وتعالى الله وحويا النبي هبين كاس أشرف الله وفي حق الأمة أمضى روح إن شرف بدن أو أفضل بدن هبينك ليلة القدر هدي أقول ليلة القدر النبي يقول حكو قاري يلي عبادات فربضان وسو جيدي جرو قنت دو أدقيسين تشري لكن هبينك ليلة الإسراء والمعراج عبادة خاصة كنو قاري يلي سيقارا ومحسن لكن هدنا ما دام أشرفت سي منزلة دا مرتبة دا وين إلهي يسيي وحا النبي أفضل بدن هبينك ليلة الإسراء والمعراج شيخ الإسلام ابن تيمية أيها ساكت جوابي أردقيسي ابن القيم أيها يسوي نصاصي كل راعي ويلي هذا لميذا هذا الكاشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه مركا waxa leenay dhacdada inta leeg meeshii ay ka dhacday waxa weeyaan maanta yahuud baa haysata habeenkaasi nabiga ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo ururiyay al-anbiya wa rusul jamiican anbiyadii iyo rusushii oo dhan baa loo soo ururiyay hagee loogu soo ururiyay waa misl aqsa baa loogu soo ururiyay waliba intii imaam u noqday ayuu tukiyay waxay taasi calaamad u ahayd laba arrimood mid waxa weeyaan in nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu yahay imaam al-anbiya wa rusul inuu yahay sallallahu alayhi wasallam taasi waa mid talabaad waxa weeyaan in hogaankii ummadaha dhami uu ka wareegay yahuud iyo nasaari iyo cid walba oo muslimiintu ay gacanta ku haynayaan waa hadii ku hogaamiyaan umamka tawxiidka ilaahay islaamnimada ay ku hogaamiyaan way dhacdadaasi qof yoo muslimkii in lagu ilowsiyo maaha waxaad ilaabisaa dhacdo weyn oo diintaada iyo caqiidadaada iyo shariicadaada ku tacalluqda waxaad doonaysaa inaad ishilmaamisid habeenkaasi sharafta weyn iyo maamuuska weyn iyo karaamada weyn la siiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam ha ku iibsan amr
من أمور الدنيا هو تنازل أمور السياسية والدين وتاريخ وإسلام نيمو وعقيده مقالدني القدس وحكلو كجرا إنني وقبلتي كواد أما قبلتي هوري المسلمين تا نبي صحابتي سنة مدة أي مثل أقصى قبلة وها بل قبلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكن أيام ما أنت لليه أرنك قدوس ما هدينا وسياسة أرنك قدوس ما هدينا وسياسة قبلة النبي محمد بس سياسة كشيء وروا دين بانليري وعقيدة بانليري وشرع بانليري كي كحناقيا كحناقو كي كعرونيا كعروضو أنك واحد نوع مهمة إن إله يجا أنو لكل مدونين أوفسن دونو إن نسكر هذه كلنا شريعة الدين تيل الإسلامي مد إلهي نو آمنينا إن أنو بينك شيء مدونه وحيد عيها كدعان والله هدي كركان له جونايو هدي ديارة الدنون كإسرائيليين تأرجيسوا جدوه نقول ليان لن نغير ولا نبدل بدل منه موقف كالشريعة هي الدين تا هي عقيدته إنه يريس وايو ما أنت هو الدنيا بيرنا وآخره الدنيا لو تشوقي مايو نينك سو سرير كده جهيرة سودك وكذا بيسا لما هو رانوا وقبر جاويا مركان نينك دوبينا يكون هنشبه جعان بيران كقبنا يا عدي يقصوا هرشيسته وحلينا ما laga yaabo in gacanta birta adiga lagu qabto intaanad dadka kale aan ku qaban ma laga yaabo intaanad gacanta birta cidna ku qaban adigu aan jabiso in geeridu ay kaaga soo horeyso ma laga yaabo ha lagu cibra qaado dawaaqidii adduunkan ka dib boodinaysi ee wax xidhay ee wax dishay ee wax doonta sameysay kacaankii ha lagu iyo madaxdiisii ha lagu cibra qaato qadaafi ha lagu cibra qaato iyo kuwa la mid ka faraha badnaa waxa weeyaan قدس أنا قديم بينوتها عقيدة نوتها نور الشيء أيا كرخيسن القدس والمسجد الأقصى نفط يدا أيا كرخيسن القدس والمسجد الأقصى وعكستون نقول قالي ونهرنا ماشي النبي وشرفته ماموسكا وكهلنا صلى الله عليه وسلم مرنا وقت تلازوني مين يهود متنازلين القدس وحويان وأولى القبلتين وحويان مصر النبي صلى الله عليه وسلم ودولك أنبياء يرسوشا يهود ما انتهى ستانا أصل أهم بكما أبترسدان نبي الله إسرائيل قرآن كوكسو أروري معنيه سنوحين وعبد الله يهود ما انتهى جودميهن عباد الله ميهن أنبياء بك قالوا بين رسوشي ميلايين نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسكت دين إن الدلان دين تود الشركيات يكفريات بكبوحة مركادين عقيدة هان نبي الله يعقوب إسرائيل ونبي الله يعقوب ويان لكنكم أبتر صدام دينهانكم أبتر صدام نصب أهانا يهود ما أنت شوكت هايستين نتنياهو يشامير بيغن أي كم هايين وحثارة البشرية ويان حتى واحد حقيقي إن أنا نصبهان عرقهان أنا ربي إسرائيل هين وحوية وعرق لنا أشكناسي أو واحد كسر أرسلن وإيسترن يوروب إيو آسيا دا سنترال إيشيا يسكسر أرسلن أو نصبهان ما هي يهود وربي إسرائيل ماها عقيدة هاني دينهان نبي الله يعقوب أو إسرائيل مقعيس ونشر معني سنايتاي عبد الله كما أبتر صدام سنة حق ومرها حق فلسطين يا بيت المقدس مسلمين تأياله مسلمين ترى قفل أو مسلم كان جاره وواجب كسارا سيد الله إلى لها بيت المقدس الله إلى لها فلسطين نعم يجا كنول ولا ننكر ذلك إنه ما دوا دول كني وين سوار كسام كمان الله يو هركسان كل شيء ودول كان كل شيء كنول هاي قفل بابنا دول كل شيء يدول كوكوري حبلوا يكون يلان تهو وكفايا تاسيسان كم سهر تشدو
فلسطين يا عربتنا وإله ماشي كو أبوري لكن فلسطين ودول إسلامي دويان ولذلك هجامياشي ووينا هول قلي حرين فلسطين اللي مركو عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه صحابة حرين دبي كريستانكو أيو قبصدين وواتي دقالي السليبيين تنتي ميلو البيسكين مادين إلا يرمو دم بقردو دي ميليتريغوغي انت الدنيا صار راعين وفردوغي صار صارين وعيدنكو صار صارين أي يماتين فلسطين بيمانين قدس نوي قبصدين محاو يمادين وحن حريننا مقالدي إن نبي عيسى يقدي إله بإله تعالى أما يقول مقالدي تيسس بانو حرينا بيدي ومقالة مقدسة يقولوا هايستان مقالة مقدسة أي هايستان ويقبصدين دي سيلي أقلين مساجدك يديك هداديين تاسوا تاريخ كرو لا شيكين كرو وهو تاريخ كتوسا يسوى حشني ماذا ضد كاسي إلا مؤرخين تو قار كميدو كوق وحكو قري مركي نصاردي يا كريستانكي يوروبيانكو اي قبسدين القدس يا مش اقصى الين فردها يجيبا waxay ka dul talaabsanayeen meedka muslimiinta ee magaranaysa saa u wadnaa masaajidkii magaalada dhiigoodu waa meel kasta qulqulayay ragii ka xoreeyay nimanka saliibiinta reer Yurub masjid aqsa ragii ka xoreeyay ninkii hoggaanka qaadayuha ما عربوها ما أفريقيان بوها ما إيشان بوها صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه وكردي ويا ولم يكن عربيا يسوى كرديا هاوشا وين أو صاقلي إلا أحريي ما حنكو كل فيه ما قومية دي سيبود دقالمي ما قبيل كي سيبود دقالمي ما وطنيات بود دقالمي لا 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 وحود دقالمي وحدونا ينحرى أولى القبلتين وحدونا مصر النبي صلى الله عليه وسلم وحدونا لما مسجد الأقصى مسجد كاسي إنه كحر يو نتشاستا كريستان كا يوروبيين كإنه كحر أيو دقال لما إلهين وقدري ووهري لمن نصارضها دب يقبصدين بيت المقدس دب يقبصدين كن إيه سجال بقول إيه تطبيق تبانكي كن إيه سجال بقول إيه تطبيق تبانكي 1917 أي عندما الإنجليز وأدب يقبصدين مدينة القدس ما حيو قبصدين ما حيو صون نقدين وحكون شيء قصدا عن كهو رمي دونه جنرال كي أبندولها كها عندما الإنجليز قالوا نتي LMB أيام maalintaasi December بهاد markuu magaalada wuxuu ka soo galay albaabka la yiraahdo Jaffa door ayuu ka soo galay magaalada Al-Quds intuu faraskiisii ka soo degay ayuu soo lugay markuu albaabka soo dhaafay ayaa wuxuu yiri kelmad buu wuxuu yiri dagaaladii Crusadersku waxa weeyaan are now complete dagaaladii saliibiyiinta aanu qarnigii 12aad ee 14aad aan muslimiinta la galay ee Quds ee Falastiin lagu dagaalamayay ay dib Salaaxdiin uga qabsadeen dhulkii maantay dhameystirmeen buu maantay dhameystirmeen jariidad London ka soo baxday in Daily Sketch ayaa front page-keega maalintaasi December 11 1917 maalintuu Ingiriiska ciidankiisii ay Quds dib u qabsadeen ayaa waxay front page-ka ku soo qoreen oo yiraahdeen the holy city in British hands magaalada barakaysan magaalada holigii ee muqaddaskii maanta waxa ku jirta gacanta Ingiriiska maxay u isticmaaleen magaalada muqaddaska why they said the holy city هذا استعمار رقالي هي هذا استعمار سياسي هي استعمار ديني أيها وحكرون عظيم اللي مركا إن كوبيت منكي ديسمبر وحب لا ما يحل يضع أي كريسمس أود بالدجان ديسمبر آخر كيجا واحد هذين إذا ماذا إنجليزكو واحد بقرض إنجليزك أيوه هديين هدية دي وقع السند المدينة المقدسة the holy city ده نينكي فهمي أو فهمي كرا طغنا ويل كيد سومالا هور صوتري دجال كميش كسعودة إلا ما أنت كسعودة
ودجال دينيا كن إسرائيل بقول يلا واتنكي markii ciidamada Faransiisku ay galeen magaalada Dimashq oo uu ku yaalo qabrigii Salaaxadiin Ayyubi ayaa abaanduulihii ciidamada Faransiiska oo looran jiray Guuro ayaa intaanu meel kala tagin ayaa wuxuu jihaystay qabrigii Salaaxadiin ilaa maanta uu ku yaala isagoo kabihiisii buurkii militariga xiran ayuu qabrigii Salaaxadiin saa u haraati Sayyid Salaadin here we are طبعا فرنسيس بكو يلي انا فرنسيس ما قانو لكن اف انجليزي ساسي وترجمين صلاح الدين here we are صلاح الدين واتنا سو نقني افعري waxa loo tarjumay ها قد عدنا يا صلاح الدين تاسا ترجمنا افعري loo tarjumay waa kalma taariikhda ka shay nimanka siyaasiyiintii hadalada ku maltahi karaan way ku qaldi karaan waa diblomaasiyiin laakiin kuwa ciidamadoodu way isqayaxaan oo arrimuhu siday tahay ay ku sheegayaan labadan qisaan aan inii tilmaamina labaduba waxay noo carabaabiyaan oo inoo sheegayaan in qudus ay nasaaradu sheeganayso ولذلك أيا ترامب ونين مسيحي ومتطرفي وعاصمتي يهودا وكسر رأي تل أبيب ونصر رأي حلقة القدس وصر يدو بلاد كيديديه تعدان كيما عدن سوق بكبي هذا الكيك إن دول كان إخواني هذول مسلمين هاي ودول إسلامي دويان waxaan maqlay niman indheer garatay isku tilmaamaya oo boorkaasi ka hadlaya oo hadaladii ku hadlayaan looga baqanayo inay ku gaaloobaan ay islaamnimada iyo diintana kaga baxaan waxa loo baahan yahay in qofku diintiisa cadeysto laakiin xeedha jecel beerka jeceli أما سعرت تراهو إن أمسك العصا من الوسط وشان حلقة سرنا كقبسنا هو سرنا إحنا وش كقبسنا يا وسياسة منافقة وين تاس ومنافقة وين أنجينا لو سوق قبرنا قارنا وحكوا ولا حنيان هشيس كي إن جنيفا كونفنشن إيو حوار العالمي إيو والحوار كعالم وحكي ما أنت يالن حوار كعالمي جاء نجلا الله يسمى منافق يو حكي يالن حركة عالمي ما حي كقبتين مركي لجراعي عرورتي إن غزلنا جورعي المساجد اللي دول دمية الجريه اللي دول دمية قوانين عالمي ده international laws نينكم يوروبيان يا كريستيان كيسليبك وقرطي حكي شوقين حقوق ضمرك حكي تالي سوردي تبغون نقو شرياشي تبغون نقو حقوق عالمية مروا ميسنين United Nations مروا ميسنين حقوق الإنسان إن يوروبيان كريستيان مروا ميسنين وحاصل هو منافقة ويا ومنافقة سياسية ومنافقة إن دبلوماسية إننا كمسلمين وحلو بها أيها الإخوة والأخوات أيها المسلم وأيتها المسلمة إنه استعمالنا مصطلحات كالشرعية ده شريعة terminology نستعمله ويان لغصو أروريا لغصو القرآن كيسنها هي كتب تفقها لكن إنك كريستيان كيوروبيان كي أما يهودي إنه قصن دوليو قوانين إساقو السمايستي ودانتا مسلمين تا يا باهيدا مسلمين تا يا حقوق دا مسلمين تا أنو أديجين ما دونينو من أقولين طالبان بينو قصو دويد لبعتان سنة أي مريكان كدوني إني كحوريان دولكو وكسو دوري وكيو قدر هشي سيدا كوضا قري مدة دير سعودي waxay u soo galeen heshiisyada waxay man jireen iyagoon suurkii ninka cad aan xidhneen oo bacadowgeedii maxaa siisa ugu labisanaya suurkiisii may xidhneen koorkiisiina may xidhneen waxay u soo galeen iyagoo cumaamadooda ugu waaweynaa
iyo libaaskii qandarhaariga xiran cimaamadu weyn go'na halka u saaran way soo hor fariisteen dooxa qatar ragga negotiationka ugu jiray Taliban waxa kamid ahaa rag 5 sano iyo 6 sano ku xidhnaa Guantanamo ku xidhnaa intaas idlaal iyo duleyn Mareykanka ugu filneed ragga inta diyaaradaha sida burcadka aad ku qaateed Guantanamo geysay ayaa maanta ku hor fadhiyo kule heshiis cadaalad doona Mareykanka wuxuu soo jeediyay fikradaheed negotiation kidii uu qorayo waa public wada akhrisan kartaa wuxuu soo jeediyay waanu baxnaa laakiin military base baanu ka sii doonaa muddo sii joogno Afghanistan gudaheeda ragii Taliban waxay waa war fiicane anaguna waxaan doonaa base military Texas ama California laga siisan oo ku ragide ya gadkiisi ka mutanaasilin cumaamadiisi ka mutanaasilin go'isi ka mutanaasilin gaalkaana wuxuu la hadlay luqadu fahmayo kula hadlay wiri hadaad base military aad door sano si haysatid aad Afghanistan ka doonaysid annaguna waxaan doonaa base military naga siiso maxay Texas ama California anaga siiso waxaan qabaa luqada kaliya ee yahuud iyo kuwa raacsan loola dhaqmi kara waa taawiyaan waa qofka muslimku xaqiisa u cadeysto aanu meerna la marin arrimaha ku soo gabagabeynaya arintaas waxa tahay ayo ikhwa waa maxay dawladdu maxay tahay dawlad ma tashariicada islaamka inuu raacna sharciga mise tagaalada inuu raacna haddaynu tagaalada u raacno dictionary-da adduunka ugu waaweyn ee siyaasiga ee government-ka laga sheekeeyo iyo buugta laga qoray waxa lagu oranayaa dawladii waa dhul dad ku dhex nool yahay maamulna leh dhulkaasi xuduud buu leeyahay waa dhul xuduud leh oo dad heshiiyay waxay doonaan ku heshiiyaan ay ku nool yahay madaxna leh hogaamisa way markaan leeyahay the Israeli government dawladda Israel markaan leeyahay waxaan ku dhacay mukhalafaad sharciya oo diiniya oo waaweyn mukhalafaad sharciya ayaan u bareeray haddaba markaan raacay qaamuuskii gaalada weeyaan political dictionary-gi islaamku waa arrin kale weeyaan iyadu kutub siyaasada sharciya islaamiga haddaad akhridana waa arrin kale oo iyadu waxay leeyihiinba waa dhul muslimiintu ay lahaayeen oo taaka intaa le shibna bay culimadu yiraahdaan maalikiyada xanaabilada axnaafta shaaficiyada kutubtooda fiqiga oo dhan haddaad dib ugu noqoto waxay ku oranayaan dhul muslimiin oo taaka leeg taako oo gaaladu qabsatay wajaba cala almuslimiin muslimiinta intii karaankooga waxa ku waajibay inay dib u xoreeyaan halkaas islaam gabadh muslimadoo bari ku qafaashay muslimiinta galbeedka ku nool waxa ku waajibay inay gabadhaas soo xoreeyaan siyaasadda sharciga ee aan la noo dhigin in jaamacadaheena lagu dhigin xagga lagaga dhigayo in sharciga gaalada waxa weeyaan shariicada islaamku waa taawiyaan waxaan leeyahay ikhwa markaynu leenahay baan idhi dawladda Israa'iil dhinaca shariicada islaamka lagama aqoonsano wax la yiraahdo dawladda Israa'iil lagama aqoonsano aakhira ku dambaabin ilaahay baa la gulminsa ha dambaabin horan dawladda Israa'iil horan wax dawladda Israa'iil la yiraahdo shariicada islaamka laguma yaqaano way dhulkan dhul muslimiin buu ahaa ingiriis iyo yahuudi iyo China jamba isku tagay oo qabsaday ma waxa leedahay dawladda maanta Masjid al-Aqsa haysata ayaa dawladda ilaahay ma taa la hortagisa ilaahay ma la hortagisa yahuud qasabkay gumaysiga ku haysata al-Masjid al-Aqsa iyo Quds ku haysata ayaa dawlad aad u ictiraafsa aad u qiraysa waa baatil waa gardaro waa xaq daro ma aqoonsanin waxa la yiraahdo dawladda Israa'iil waa dawlad gumaysiya waa dawlad in burcad ay maamusho qofkii doonaya inuu wala doodowna banaanka ay soo taago oo public debate baan diyaarinahay inaan la sameeyno qodob kastoon khudbada maanta jimcahan ku sheegay waxa weeyaan waxaan diyaar u ahay
waxa public debate dood ay dadku wada maqlayaan in aan la galayaan diyaar ah laakiin hadii adoontu hadii arrinku yahay haddaad suuq tiraahdo gacan biraan kugu qabanaya taana yahuud baa leedahay anaguna ilaahay baan leenahay culimada xoolintan waa inda allah tajtami'u al-khusum ilaahay agtiisa ayaa dadka iskhilaafsani ay ku wada kulmi doonaan ilaahay bayna kala saari ilaahay bayna kala xukumi wa ila allah turja'u al-umur